qiso cajiib badan. Qisadan waxay ku saabsan tahay gabar qurux badan oo aad iyo aad u dhowrsanaan badan oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran ayay ku dhacday. Qisadan waa mid ka mid ah qisooyinka ugu cajiibka badan uguna soo jiidashada badan oo ay qoreen culimada islaamka ayaan maanta idin soo gudbinayaa. Qisadan oo run ahaantii noqon doonta mid dareen baaxad leh kugu reebta. Gabar aad u qurux badnayd, xanaan wacan Ilaahay ku manaystay ayaa waxaa la sheegay inuu aad uga helay nin ay meel isku arkeen. Ninkii ayaana aad ula yaabay gabadhan quruxdeeda iyo qaabka Ilaahay u sameeyey subxaanahu wa tacaala. Ninkan ayaa isku dayey inuu gabadhani xiriir la sameeyo si uu ula sheekaysto, balse marar badan ayay ku gacan seertay iyadoo ka diiday inay hadal la furto. Ninkii ayaa wado walba u soo maray siduu mar u heli lahaa gabadhan, balse addoonta Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran quruxdana lagu manaystay ayaa go'aankeeda ku adkaysatay iyadoo fursad dhan u diiday inuu ninkani u soo dhowaado. Ninkii ayaa go'aansaday inuu kufsado gabadhii oo uu xoog wax uga qaato maadaama uu khaylad wax uga waayey. Wuuna xoogay gabadhii oo aanan raalli ka ahayn. Wax walba qasab ayuu ugu qaatay, balse arrinka la yaabka leh ee qalbigaaga dhaqaajin doona ayaa ah arrinka ay gabadhani ku dhaqaaqday intii uu ninkani xooshiisi watay. Gabadhan ayaa aragtay in ninkani uu ka xoog badiyey, wax ay samayn kartana aysan jirin, waxayna ku fikirtay wax ugu dhow ee gacanteeda gaarto inay soo qabsato, balse sheegii ugu dhowaa ayaa noqday dab shidan oo meel agteeda ka ololayay. Waxayna gacmaha la gashay dabkii iyadoo gacmaheeda u bareertay inay gubto. Ninkii ayaa hawshiisii dhammaystay, balse markuu ka istaagay ayuu la yaabay ficilka ay samaysay gabadhu iyo sababaha ku dhaliyey inay isgubto. Wuuna weydiiyey waxa ku sababay, waxayna ugu jawaabtay, markii aan arkay inaad iga awood badisay oo aanan haynin waddo kale oo aan iskaga kaa celiyo, waxaan go'aansaday inaan gacmahayga gubo si aanan kuu dareemin, dembigana aanan kula wadaagin. Arrinkan ayaa la yaab iyo dhakafaar ku noqday ninkii, balse ficilka ay samaysay gabadhan ayaa noqday tusaale cajiib badan, qalbiga qofka muslimkaana dhaqaajinaya, iyadoo ay habboon tahay in lagu cibro qaato. Ilaahay subxaanahu wa tacaala hana dhowro, gabdho iyo wiilalba hana ilaaliyo. Fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad hore noola joogtayna noo sii sheergaray oo like-ta noo taabo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.